daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo idinkaga imaanayo xarunta TV-ga Jubbaland ee magaalada Muqdisho. barnaamijkan gaarka ah waxaa idinla socodsiin doono anigoo ah Cabdullaahi Maxamed Samawade. barnaamijkan gaarka ah waxa aynu ku eegi doonaa dood cilmiyeed oo ay soo qaban qaabiyeen Machadka Samadoon ee cilmi baarista nabadda iyo istiraatiijiyadda ee ku yaala magaalada Muqdisho. dood cilmiyeedkan oo ku saabsanaa xal u helidda takoorka iyo naceebka bulshada dhexdeeda ah ayaa waxaa ka soo qayb galay culamaa u diin, aqoon-yahano, bulshada noocyadeeda kala duwan oo khubarada dooda daadihinayay ay si qoto dheer ah loo falanqeeyay dhibaataynta ku salaysan naceebka, takooridda iyo saameynta xun uu ku yeelan karo isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed, hababka uu ku imaan karo iyo qaababka loo xalin karo diin ahaan, dhaqan ahaan iyo sharci ahaanba. iyadoona si gooniya xoogga loo saaray dhacdadii foosha xumeed ee dhowaan magaalada Muqdisho loogu dilay allaha u naxariistay marxuum Axmed. marka nabiga u timid sallallahu alayhi wasallam waxay tidhi hebel iyo hebel baan ila hadlay yaad ii doori lahayd tala isii labadan ninkeen ka doortaa. wuxuu yidhi hebel Sufyaan ninka la yiraahdo waxba ma hayste waa sacluuge ka leexo biilku ma haya ninkaas. hebelna naaguhu dilaa oo u shaar warqarka u saaran tahay asla yuusan ku dhibine dhinac ka mar. laakiin hebel oo weliba markaa dadka oo waa adoon iyo waxa ay lahaa ka soo xoroobay yuu yiri laakiin hebel baa baraka ku ah hebel guurso. horta ereygan la leeyahay ree hebel iyo kana adoon iyo kana fulaan iyo la leeyahay maanta hadii la eego inaga adoon ah horta Soomaalidu waxay maqashay hebel waa noocaas waa adoon waa fulaan. horta adoonnimadu waxay ahayd anagoo maanta intaan Mareykan ku duulo gabadhan oo ina taraam budhucule la soo qabsado la adoonsado haadii iyo adoonnimo horta markaan gaaliyo islaan intaan u dagaalano aan gaalada ka adkaano adoonnimo horta halkaas leeyahay qof adoon oo dhashay ma jiraan. dhalinyarada oo hadda anagu hadda guur ka bartagnay haddaan guursanayna ku fiimayna insha Allah dhalinyarada Facebook-ay qofka aad guursanaysaan horta qof aad dabcigiisa iyo diintiisa iyo akhlaaqdiisa aad ku guursato horta waa inuu noqdo wax ree hebel la yiraahdo ilaahayna ma abuurin yani waa ilaahay uu abuuray hadda ree hebel abtir baa jira laakiin wax kala sareyn la yiraahdo oo bini aadamka ah ma jirto. Soomaalida waxyaabaha ay ku liidato waxa kamida anu ma tagin laakiin waxa la ii sheegay hadda kuwa Yurub iyo meelaha ay jira niman jabeekaan ah oo jareer ah ayay guursadaan baa leeyahay. gabdhaha Soomaalidu aad u jecel yihiin wiilasha Soomaalida ah oo waa jareer ay leeyihiin ma guursadaan. markaas wiil baa wuxuu guursaday gabar Soomaali ah oo asaguna isla Soomaali ah Ingiriis buu kula hadlay wuxuu iskaga dhigay Jamaica buu iskaga dhigay meel dhax markii la isla galay oo la isla tagay ayuu af Soomaali kula hadlay markaas ay tiri alla baay oo maxaa lahayd markaas uu maxaa lahaa in adeerka ma laha way booday wuxuu yiri ma af Soomaaligan eeday wiil af Soomaali jareere ma af Soomaaligan eeday ma islaamnimadan eeday. walaalayaal dhalinyarada soo koreysay horta guur marka damacadaan waalidkiin la tashada qofka guursanaysaan qof aad diin iyo akhlaaq ku qaadataan ha noqdo jacaylkan aad sheegaysaan oo dadkan leeyahay wiilka gabar baa isla dhoomanaya noolaha oo dhan shahwo waa leeyahay mukulaasha oo isku cayrsata waad aragteen shahwo inay dadka wada lama rabo ee aqliga Ilaahay uu nasiyay inuu shaqeeyaa la rabaa. haddaan guurkan qaraabanimo iyo dad isjeclaan haya iyo wanaag haddaan ka imanaynin wax faa'iido u keenayo ma jiro. waa hebel oo waa in hebel in loo fogeeyana la aqli wala diin. marka walaalayaal hadda dab waxa la yiri wax kasta oo dhaca wax faa'iido u keenayo waxaan rajaynayaa arinta foosha xun oo aqliga iyo xisigaba ku foosha xun iyo sharcigaba inay wax badan badbaadiso. dawlad iyo xeer hal la sameeyo iyo oo wax badbaadin karana ma jiraan
ilaahay diin buu na siiyey diintaanadii oon u soo noqonno waxaan ahayn oo na wadi kartaa ma jirto diintuna kulligeen min aadam wa aadamu min turaab baan ka nimid laa fadla calaa carab walaa cajam walaa waaxid hal qof baan hal aabiyo hooyaana wada dhalay soomaalida wax dhib badane qabiil oo nin qabiilkaa ka mid ah ay duween oo ay dhaheen waa midgaan ama iska qurxiya hadalkaas yaa maalinkii dambe reerkii asaga ugaaskiisii u yimid markaasuu yidhi ugaas in ayaan ahay markaasuu yidhi in hebel suu u abtirin yaan ahay ree hebel haye maxaan ahay hadde maxaad ahaan lahayd aduguna ma hubtaa haa hal mid baan ku weydiin buu yidhi marka haye odayga awowgeen ahaa ma laba bahal oo midna uu nasab ku dhalo midna midgaan ku dhalu lahaa buu yidhi maxaa ina kala duwan marka haddaan isku abtirnahay feen anana aan waddo u qaaday aduguna aad waddo u qaadato waxaasi waa jaahilnimo jaahilnimadaana nabiga inagala soo hadlay tii uu nabigu ummadda ka zuuliyey baan annagu u noqonnay oon dabada qabannay bahashaasi ha laga tago waddadaad qaadaysaana iska saxa qof ka fadli badanna ma jiro dhaqankuna wuxuu ahaa giilkii iyo gabadha isa soo doona waalidkoodu inuu isa siiyo haddii la isku qanco hadduu yidhaahdo muxuu ahaa labada qoys ay isku qanci waayaanna wax isku khasbahaya ma jiro dadku waa isdhaqan yaqaana hebel haa ila nabigu wuxuu yidhi ninkaana ulbu geeda ku daay wuu ku dili kana waxba ma haysto haddaad ninkii qofkii aad u sheegto muxuu ahaa waxyaabo shakhsigiisa ah oo aan ree hebel ahayn waa wax jiri jiray laakiin ree hebel wax loogu diido nabigeenuna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sala allahu calayhi wasalam afar ninka wax guursanayo afar buu wax ku doortaa bidiiniha wa bimaaliha wa bixasabiha xasabka la sheegaya qabiil ma aha shakhsiyad walimaaliha marka nabigu wuxuu laakiin waxaan kugula talinhayaa fadfar bidaati diin qurux waxbaa ku guursanin wasiir baa dhalay madaxweynaa dhalay badanaa kuwa madaxweyne dhalay oo aadan risiisanaynin wuxuu ahaa maal bay leedahay iyo intaa waxbaha ku qaadanine diin iyo akhlaaq ku dooro wiilka aad dooranaysana intaa ku dooro dhaqankuna intaa ha ahaado walaalayaal Soomaaliyeey kulliba hadalku uu iska bixi doono insaanimaduna waxba na tari maysa islaamnimadaan u noqono oo waan sheegnay kuma dhaqanne aan diinteena ku dhaqanno kuwii guursanayana si sharcigu qabo wax u guursadaan kuwii muxuu ahaa wax dhaqmayana ha u dhaqmaan dulmiga dhacaana sharciga ha lagu saxo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh markan waxaan u maaleynaa qawaaniinta iyo shuruucda Soomaalida iyo sida ay u maamushay una maareysay dhibaatooyinka noocan oo kala ah waxaan ku soo dhaweynaa abukaate Cabdullaahi Maxamed Jimcaale ku soo dhawaaw diyaariye barnaamijka noocan oo kale ah oo loo baahan yahay waxyaabaha maalin walba ka dhaca mujtamaca haddii sax yihiin in la bogaadiyo haddii khalad yihiin la isaga digo si aysan u dhicin marar kaleeto runtii waa wax aad u fiican oo dadka wacyigelintooda wax weyn ka taraysa waxaan isleeyahay in laga wada dheragsan yahay culimaduna noo sheegtay arrimahan muxuu ahaaye midab kala sooca iyo sir sooca iyo maxay ahaydey dhalasho qabiil iyo waxyaabo ahaasoo dhan waa wax ummadda lagu kala soocayo oo ummadda xuquuqdoodii qaar lagu dhimaayo qaarna dhibaato lagu geysanayo waa wax shareecada islaamka iyo muxuu ahaay qawaaniinta dalka iyo xataa xeerarka caalamiga ah ka soo wada horjeeda marka laga hadlo bini aadamka qof walba xuquuq dhameystirna ilaahay siiyey oo la leeyahay qofkaasi maadaama la abuuray oo ilaahay abuuray laga bilaabo noloshiisa markuu dhasho ilaa uu ka dhinto xuquuq wuxuu leeyahay joogto ah oo in la taabtay aysan ahayn islaamku waaba ka sii xaq jiraa oo aad uga sii dadaalay oo xataa caloosha markuu ku jiro siiyey markuu xataa ifka ka tago siiyey xuquuq badan laakiin mowduucan qawaaniinta ah oo caalamiga ah qofka inta uu nool yahay xuquuq dhameystirna la siiyey
oo laga soo qaatay midaas islaamku siiyay laftiisa haluu kala duwanaado xataa dawladahan islaamka ahayn oo gaalada ah xuquuqdaas bini aadamka si u noolaadaan oo usoo muxuu ahay u badbaadaan oo qofna aysan dhibaato loogu geysanin xuquuqahaas runtii la wada sameeyay dawladaha islaamka ummadaha islaamkana waxa u sii dheer inay shariicadii islaamka xuquuq ay bixisay lagu taagan yahay xuquuqahaas bini aadamka si loo ilaaliyo waxaa laga dhigo waxyaabo laazim ah oo qofku inuusan ku xadgudbin ay tahay waxaa lagu qoray dasaatiir dastuurada مثلا هذا الصومالي وكليته mid walba fasalada u koobad waxa ku qoran xuquuqda bini aadamka oo dadku inay nolosha u siman yihiin inay wax walba u siman yihiin dastuurka 60 ku qoran tahay kii siyaad bar 60 ku qoran tahay waxay ku qoran tahay xataa axdiyadii 2000 iyo 2004 waxay ku qoran tahay midkan dambe oo hadda 2012 ah kulligood waxay leeyihiin xuquuqda aadanaha oo ah qofku inuu noolaado inaan lagu xad gudbin naftiisa iyo maalkiisa iyo muxuu ahay hantiisa lagu xad gudbin inay tahay wax waajib ah oo sharci islaamku waa ognahay waa kulliyat al-khamsa kamid tahay waxyaabaha nafta in lagu xad gudbin ah waxa laga dajiyay lafteeda ciqaabaad oo xeerarka qoran Soomaali u qoran xataa oo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed xeerka habka ciqaabta iyo xeerarkaas oo dhan waxa ku qoran inaan lagu xad gudbi karin arrimaha nooca qofku xad gudbana oo la kulmaayo waxyaabo noocaas marka sabab jirta ma aha in la yiraahdo qofkan waxaan oo sameeyay khaladaadka noocaas anigaana ciqaab saaraya wax sababo jira ma aha حتى قفكو هدي خلط لغا غلو اما او خلط ترسنايو او موقدو عادي هو امده حقوقديسا waxad gudbo qofku wuxuu dacwo kara meelo kaleeto wuxuu dacwo kara culimo wuxuu dacwo kara dawlad wuxuu dacwo kara waxyaabo badan oo kaleeto markana waxaan siinaa abukaati Xasan Cali Sheekh oo asagana ka hadli doona shuruucda caalamiga iyo sida ay uga hadashay arintan heebsooca amaba discrimination-ka dadka lagu sameeyay qaarkood arin muxuu ahaay gabood fal aad iyo aad u xun haday noqon lahayd dhinaca laga heebsooca ama takooridda guurka ha noqoto ama dhinaca kale ha noqoto diilka arxan darrada ah yani labadaba ragga asxaabta iga soo horeeyay way ka mideysnaayeen tan mid la mid weeyaan caalamku waxa uu jideeyay shuruuc caalami ah oo dawladaha marka qaramada midoobay ee dawladaha heshiisyada noocaas saxiixay ku waajibanaya inay ilaaliyaan hadii dawladdi gudaheeda dadkeedii ay shuruucda ayda u yiila ay ku xakameyn weyso beesha caalamku iyo dawladaha iyo qaramada midoobay ee hawshan ayagana xuquuqda aadanaha sida gaarka ah loogu xil saaray way soo falgalinayaan waa marka waajibaadkii ama heshiiskii dawladda ay saxiixday ay dhaqan gali weyso ama ay ilaali weyso Soomaaliya waxay kamid tahay dawladda madax bannaan oo caalamka kamid ah weeyaan waxay ka qayb qaadataa horumarinta waxyaabaha lagu ilaaliyo xuquuqda aadanaha Soomaaliya waxa jira heshiisyo badan oo caalami ah gaar ahaan xuquuqda aadanaha ay saxiixday marka u soo laabano shuruucda ku gaarka ah caalamiga ee arinta hadda aan gudaha ku guda jirno laga hadlayo heshiiska carabtirka kala takooridda isirada waaba arintan ka hadlayna naftarkeeda 1975 ee dal Soomaaliya saxiixday inay gudaheeda ay mamnuuc ka tahay falka noocaas waxa kale oo la mid ah heshiiska caalamiga ee la yiraahdo ka dhanka ah jirdilka iyo siyaabaha kale ee xun ee dalka loola dhaqmo oo kamid yahay dilka arxam la'aanta
marka maadaama Soomaaliya ay dawlad ka qayb qaadanaysa horumarinta xuquuqda bini'aadamka ay tahay ee xubin ka tahay caalamka waxay leedahay mas'uuliyad dawli baa saaran mas'uuliyadahaas dawliga waxay ku waajibinayaan iyo heshiisyadaas ay aad u ay saxiixatay horta lambarka waxay u sheegayaan waxay leeyihiin dambiyadaasu falkaas waa fal dambiyeed xagga shuruucda caalamiga ay ka tahay horta koow labo waxay dawladda Soomaaliya ku waajibinaysaa inay u xaqiijiso qof kasta ma aan kaliya hataa muwaadin kaliya oo dalka Soomaaliya ku nool maahan qof kasta oo hoos jooga maamulkeeda waxay ku waajibinayaan shuruucdaas iyo heshiisyadaas ay ansixisay si wax ku oola inay u ilaaliso lambar koow inay si wax ku oola u ilaaliso lambar labo in ay siiso magdhow ay fuliyeen hay'adaha garsoorka ee u xil saaran waajib ilaalin iyo waajib haddii ay dhacdo lagu saxayo oo magdhow lagu dhiibayo labadaba waa shuruuc caalami ah heer caalami ah marka labaadna ee dawladda Soomaaliya ay dhinaca ka tahay oo ay saxiixdo oo waajib ay ku tahay inay ballanqaadyadii ku xusnaa heshiisyadaas ay fuliso ah okay shuruucdii dhan waa saabiq u qorayaan ama heer caalami ha noqdaan ama mid gudaha ha noqdaan dhaqanka iyo shariicada islaamka waa ka dhibaatada weyn waxay ka jirtaa marka dhibaatada waxay ka jirtaa wacyiga guud iyo garashada macnaha dhabta ah ee xuquuqda aadanaha fahamkeedu aad u hooseeyo fahamkii oo aad u hooseeyo wuxuu caqabad ku yahay inay adeegsadaan mas'uuliyiinta Soomaaliyeed inay adeegsadaan xubnaha bulshada rayidka inay adeegsadaan muwaadinka caadiga inuu adeegsado waxaan ku soo gabagabeynayaa marka oo aan rajaynayaa in shacabka iyo dawladda Soomaaliyeedba xuquuqda aadanaha inay u adeegsadaan qalab ay ku xoojinayaan sharciga iyo kala dambeynta lan ujeedka laga leeyahay oo intaas weeyaan qofka xuquuqdiisa in lagu dhowro sharciga kala dambeynta in loo adeegsado xuquuqda aadanaha aad maqlaysaan isla markaasna lagu dhowro sharafka wax kala ma ujeedka laga leeyahay waa intaas iyo waxaan idin furi doonaa su'aalihii iyo aragtiyadiina si aad ugu dartaan dooda waxaan markaan ku soo dhaweynaa Cabdirasaaq Maxamed Aadam oo ka hadli doona qaabka ay u dhacaan dambiyada noocan ah amaba haybsooca iyo qaabka Soomaaliya uga dhaco waxaan leeyahay ku soo dhawaab midab sooca iyo takoorka mid waxa waaye midkan adduunka ku aragno oo ah inuu qofku aamino biologically structure iyo culturally inuu aaminsan yahay oo ku dhashay asagoo aaminsan in la kala duwan yahay waa midka Yurub iyo Mareykan looga dhaqmo oo ah madow iyo cadaan qofka aaminay dadkiisii baa u sheegay buugaa qoran buu arkay wuxuu rabaa ha ku saleeyaa asagu taasuu aaminsan yahay midda labaad waxa la yiraahdaa mythku waxa waaye ku tiri kuteen ereyga Soomaalidu isticmaasho wax soo jireena oo aan raadiyo cirib lahayn oo dadku aamineen waay oo culturally dadku adaptation ku sameeyeen ay practice gareeyeen aan la iska waanin aan loo istaagin ilaa iyo maantadan aan joogno ilaa iyo muddo marka annagu teebaan qayb ka nahay maadaama aysan jirinin waa madow yahay iyo cad yahay arrintayadu waxa waaye ku tiri kuteen inay ku caddahay islaamnimadayada iyo dhaqankayaga iyo bini'aadamnimadeeda maadaama aysan meelna ka soo galaynin waa wax la aaminay marka anu ma rabo inaan iraahdo sidee bay arrintu ku dhacday arrintu waxay ku dhacday wax soo jireena oo ilaa iyo Soomaalidu muddadii ay soo bilaabatay kadib ay Soomaalinimadu jirtay dad la iska dhaadhacsiiyay inay ka liitaan dadka kale oo ay dariska leeyihiin kaliya hadda arrintani waxay bataabatay maxaa la yiraahdaa
dad la yiraahdo waa tim adag yihiin waa jareer waa afrikaan intii xildhibaanku ka hadlayo kale qodobka kale oo taabto ahaa kuwa aan jareerka ahayna naga tima jalicsanay anigu kuwaas ama kamid ah waa timaadka ahay ayagana maxaa lagu saleeyay markaad isku soo duuduubtid waxay imaanaysaa wax ah jaahilnimo aan aaminay oo ah ku tirukuteen oo noloo soo gudbiyay oo aan waqtigeedii ay ku fiicnayd ama dadka markaas waxaas ku dhaqmaya aysan aqoon jirinin oo ignorance ay jirtay diinta laftigeeda xataa waqtigaas aan dadku si fiican u aqoonin ka bacdina aan culimadii iyo dadkii aqoonyahanka ahaa iyo siyaasiyiintii midna u istaagin waxaan rabaa eragayga ugu dambeeya inaan idhaahdo sideebaa marka looga hortegi karaa ma aha macnaheedu dagaaladii jiray iyo dhiiggii daadanayay iyo dhicii iyo boobkii raad kuma laha wax raadoo ay ku leedahay ma laha waa wax soo jireena waaye oo weligeed soo jirtay inaan reer hebel laga guursan haddii gabadha maaragtay laga soo doono in loo diido gogasha looga kaco iyo sidaasoo kaleeto sababta reerka loo warayso la yidhaahdo odayaal keenso macnaha ugu weyne waxa waaye in loo ogaado reerkaa tahay haddaad reer hebel tahay gogasha lagaa kacaya waana lagu diidaya marka sideebaa looga hortegi karaa oo adduunku ay bawaag uga qoreen discriminationku waa wax xun bini'aadamnimadii iyo islaamnimadii iyo dadnimadii inaysan ku jirin waa la isku raacay laakiin weli dad baa ku shaqaysanayo waa la aamino qalbigiisii bay gashay oo laguma karayo inuu sameeyo qofkaani hadda hadduu ka dhibtoon yahay oo ay gubayso calooshiisu haddana intuu istaago ficlan ma samayn karo wixii ummadiisu ay ku wada dhaqmahayeen wax ka duwan inuu sameeyo waxay qorayaan bugaagtu waxa ugu horeeyo oo la qabtaa inay tahay dhinaca siyaasadda maanta shacabku hadduu dareero oo yiraahdo 20 aan isku guursano macna badan ma samaynayso sida walaalkay sheegay dhinaca sharciga ee siyaasadda ee dawladnimada jirtay inay meel saarto arrintaas waxa ku xiga bulshada in laga wacyi geliyo waxa ku xiga dadku inay ficil sameeyaan marka Soomaaliya arrintaani lama socoto inay dhibtay laakiin wax badan oo aan ka qabanaan kar ay jirinin laakiin aan isku tilmaami karno bini'aadanimo iyo islaamnimo iyo Soomaalinimo midna inaysan ahayn waxaan idinku boorinayaa shakhsi kastoo naga mid yahay inuu calooshana ka naco ficliyan hadduu samayn karana sameeyo ma inaad dadishid waa inaad wacyi gelisid qofka dariskaaga ah arrintan aysan dib u harin aysan noqonin waxyaalaha maalin walba dhaca 700 oo qof oo dhintay waxay ahayd wax dagaal ku dhaceen kuwii qabiilada isku dilahayeen sidoo kale laakiin tani way ka duwantahay tani waa mid soo jireena haddaan Soomaalidu iska reebinna ay ceebteeda yeelanaysa maalin shakhsi kasta oo discrimination lagu sameeyo ama barjadis lagu sameeyay ogow inay dhibayso ogow inuu maalin ka aarsanayo ogow inuu maalin waqti ku helayo hadda maanta ilmahaaga aad geed fiican u falinna birrito asaga noqon doona meesha jareer ku yaala maanta aniga waxaan rabaa si cilmiyana inaan wax uga hadlo wax kasta oo jiro asaas ay lahaayeen lisma weydiin xagee ka imaadeen waxaan inaan is weydiino waa haddaan nahay dad aqoon-yahana xagee marka la rabaa in la gaarsiiyo waxaan ama lagu baabi'iyo ugu horeyntii aniga waxaan qabaa in marxalad al-uula ama marxalad bidaa'iya ama primitive society inay hawshan soo bilaabatay dadkeena jaahil ay ahaayeen dad aad u yar ay ahaayeen waa isdhici jireen arinta la leeyahay waa la kala badan yahay iyo waa laga tira badan yahay meeshaas ka timid waxa ku soo hartay arinta faquuqa hadda maanta dad kala badan ma jiro qabiil ka badan ma jiro qabiil ka xoog badan ma jiro Soomaali waa sanaqaana waxa la rabaa marka in isla meel dhigno waxa haddaan daboolno wixii ma soconayaan adduunka marxalado badan soo maray qarnigii 12aad hadda sii galeynaa war primitive society-ga u noqonaa ma marxalad bidaa'iya u noqonaa ma aha in loo noqdo waxa la rabaa adduunku hormaray anagana inaan hormarno waxyaalo badan baa hadda la dagaalameynaa sida gudniinka fircooniga oo kale marxalad bidaa'iyo ka soo bilowday dagaal xoog laan ku haynaa waa soo afjareena wax yar nooga haray qabiilka iyo midabta koorka iyo dad baa laga tiri badan yahay ayadan marxalad bidaa'iyo ka soo bilaabatay waxa loo baahan inaan gacnaha isqabsano oo tirtirno Soomaali qabiil ka badan ma jiro qabiil mataqaana ka xoog badan iyo mid ka tira badan midna ma jiro waxa la soo gaaray jareer ilmahan dhalna qaar waa timaadigiin qaarna waa timajilicsan
kala sooca marka qaar ma waxaan leeyahay jareerata qaarna jaleecata maan leeyahay timaha waa wax ilaahay dhaliyay runta hadii la rabo ma aha in la leeyahay cunug walba qabiilba ka soo baxa aabii hooya wada dhale midaa timaada kugu dhalna midna timo jilicsan kugu dhalna inaan kala saarno ma marka walaalaheen ma aha midaan lagu takoorayo timaadeeg ma aha kuwa lagu takoorayo maaragtay farsamo haddii jiri lahayn maanta Soomaaliya waxay cuni lahayd waqtiga indiyaha ayaga noo sameeyay haddana annaga ka badin sida loo sameeyo runta fiican annaga markaan leeyahay waxa waay Soomaalida inteeda kale hawl kasta la dhigi jiray ayaga qaban jir waa la wada qabtaa waa la casriyay warshada la gaarsiiyay marka waxa loo baahan yahay arrimahan hadda dhacayo wali dad maskaxdooda ku jirta inta badan way ka koreen waxaan maraynaa maaragtay ahdi dheer iyo horumar dheer baan gaarnay waxa loo baahan yahay marka sida looga bixi karo waxaan ku soo jeedinayaa inaan wacyigelinta badino runtii arintan waxaan kala qaadayaa labo mid waa dhibaatada dhacday oo Soomaalida bariyahan aad ay uga hadal hayaan iyo midaan oo ah maaragtay isir takoorka ah labada inaan u kala qaado ayaan rabaa aniga middan bariyahan dhacday anigu uma arko sida gabadha sheegtaan u dhawahay oo waxaan qabaa in la raadiyo xal qaran ee aan la raadin maaragtay aroos qaran ama guur qaran inaan la raadin waayo dhibaato xoog laha meeshii ka dhacday dhibaatadaasna waxay u baahan tahay in xal laga raadiyo qof kasta Soomaaliyana uu dareemi karaa taasaan ka qabaa tan kale midabtako ama maaragtay isiris takoorka ah ee Soomaalidu hore ugu dhaqmi jirtay anigu waxaan ka qabaa inay baababa tahay hadda aragtidayda gabdhaha hadda waa la isku diidaa oo laba nin oo isla dhalatay ayaa isku diida oo ilma adeer ah ayaa isku diida mararka qaar xiisa adag tagta Soomaalidana dhaqankeeda ay weligeed ba ahayd laakiin hadda sida oo loo dhigayo ama meediyaha u dhigayo ama bulshadu inta badan u dhigayso hadda Soomaalidu inta badan halka waxay u aaday diinta ayay si fiican u baratay gabdho badan oo hadda la yiraahdo gabdhahaas waa jareera na waxa laga yaabaa anigu intaan ka aqaano rag baa qaba rag badan oo jareera oo madax iyo majabalane gabdho badan oo hadda jileeca ayay qabaan marka arintaas anigu waxaan u arkaa arin aad loo si karkarinayo laakiin sida saxda aysan u soconin oo dadkaasu hadda waa la isguursadaa Soomaalidii waana xalka kaliya waa in dadkaas loo aado diinta xigta loo aado anigu taasaan u qabaa horta maanta oo dhan waxa isweydaarsaneenay wax oo bulshadeena aad uga cabsiya hadda balse waxaan advocate gareyn lahaa mise waxaan codsan lahaa in ugu horeynba takoorka wuxuu ka bilaawdaa macnaha in la dhaho jinsiga waa jareer ama jileec labadaas eray haddii bulshadeen laga dhaafi lahaa waxaan filaa in wax walba ay bedelmi lahayn so waxaan rajaynayaa in waxaas la joojiyo haddii bal rabo in ay bulshadeen sii horumarto labadaas qodob oo kala ah dawladda ku socdaan labadaas qodob waxaan dhihi lahaa dawladda horta wax walba waxa la baabiyaa markii oo xasilooni la haystay nabadgelyo dawladda in laga la shaqeeyo si amni iyo nabadgelyo horta loo abuur lahaa number 1 taas waaye qodobkan la leeyahay waxa la dhigayaa aroos qaran dawladda inay ku bedesho in yaani dadka isdhaxgalaan oo iscafin iyo madal oo dadka la isugu soo celiyo oo qulubtooda la isugu soo celiyo in la sameeyo madaxweynaha waxaan jeclahay dhowr mar inuu ka dhawaajiyay oo yiri waxaan naqanaa oo dhaqameed Soomaaliyeed ma u jeedna ilaa hadda oo dhaqameednimada ma aragno marka waxaan rabnaa beelaha la dulmay ee 30 sano ka badan dulmiga oo ku socday dhaxdooda in la yimaado caawashadooda la dhageysto maxaa tabanaysaan in la hadlo dawladda inay beelaha isku soo duudo qulubtooda taasaan rajaynayaa saas lagu ciribtiri dadka dhami waxay yiraahdaan xal baa la biday xal lama bidi karo wax dambi ah waa dambi qof nool oo diinta islaamka ku dhalatay ilaahay abuuray oo aniga ayadu diintana u siranahay ilaahayna u siranahay in la yiraahdo waa haaf aan sax uma arko horta dhibku halkaas uu ka soo bilowday taas haddaan taas uga baxo arrintan naxdinta badan oo argagaxa badan waxaan maqlayay hadday tahay sax iyo hadday qalad tahay kulli waa ra'yigayga dawladda oo dhahaysa waxaan u dhigaynaa maxaan ku dhihi lahay aroos qaran dad baa la dilay si cadowtinimaha aad u naxariis daran loo dilay haddana isku dhaaranay qaarna waxay ku jiraan xabsiyada oo toogashay u xiran yihiin gabadha yartaa hooyada toogashay u xiran tahay
wiilka adeerkiisna waa la gubay waa dareemi kartaa ilmaha tiiraanyada ka muuqata anu waxaan garan lahaa waxaan dhihi lahaa dadka aqliga u saaxiibka ah ama dawladda ha ahaadaan ama shacabka ha ahaadaan xal in la raadiyo markii xalka la helo xalku ma aha labada qof hoteelka ay ku jiraan xal ma aha amnigoodana lama soo karo wiilka gabadha walaalkeed xalay wuxuu ka dhaaranay South Africa wuxuu yiri wiilka gabadha nin baan ku daray nin kalena kuma xiranto ninkaasna gabadha walaashay ma calfanayo wallaahi haddaa soo qaadaan aroos qaran aas qaran aad dhigaysaan bahasha halkaa maraysa in la yiraahdo aroos qaran la dhigayaa oo labada cunug hotel la geeyahay anu sax uma arko dadka aqliga u saaxiibka ah maslaxa kale ha raadiyeen dadka inta hartay hal la badbaadiyo halka meel kale ha loo wajaho hal la tabliiqiyaan qabaanugu aadaan u mahadsantiin waxaan aad ugu faraxsanahay dhacdadii runtii foosha xumayd sida dadka Soomaaliyeed ay uga jawaabayaan gudaha iyo dibadda oo runtii qof kasta oo dhib iyo xanuun arintaasi si gaar ah si guud ah u taabatay oo raali maartay ee uu ka yahay markaan xaqiiqada idinka hadlo ninka geeriyooday ama ninka la gubay marka reer ahaan ama xildhibaan ahaan qabiilka isaga ama Soomaalida hadda la tacaarufo loogu talagalay beesha intira la yiraahdo ninkii kursiga u matalayay ee baarlamaanka Soomaaliyeed anoo ah waxaan aad iyo aad idinkaga mahad celinayaa dhacdadaas sida ay iyada dad kaliya markii hore ee khaas ah ayaa markii hore ay iyadu taabatay laakiin guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan markay taabatay oo meel waliba gudaha iyo dibadda loo istaagay in culimo ka hadasho wax garad uu ka hadlo runtii qof kasto damiir leh inuu arinta ka hadlo loo damqado yani waxay keentay in wax badan oo muruga ah iyo cabsidii maartay argagaxi ay qabeen qoyska inay hoos uga daadegtay oo ay ogaadeen inay Soomaaliya maanta Soomaalidii shalay aanan ahayn tii sagaashameeyadii fawdadii lagu soo ababay ee qofka inta la iska dilo la iska dhaqaaqay yaa la dilay koloma oo yaa la dhijiray yaa la dilay mid looma aaraan ah hadda in ay dadka asaas loo la dhaqmi jiray in hadii la dilo iyo hadii la dooxo inta badad u ooya iyo dad u damqada iyo dad u hadlab inay leeyihiin ay ogaadeen taas si guud ah ayaan uga mahad celinayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan jawaabta ay bixinayaan iyo sida ay uga hadlayaan oo waliba wax un bay ka bilowdaan in hadda loo istaago guud ahaan sidii xal loogu heli lahaa waxyaabahan raqiiska ah ee bani aadan iska samaystay oo qof waliba qofka kale meeshuu joogo wuxuu asaga bi'adii uu ku noolaa isaga ay bartay ee ay tustay kaliya ee ku caqliyeystay ku weynaaday ku barbaaray tarmay inay tahay ee wax aan lahayn raad taariikheedu fiican oo la cuskan karo oo la dhihi karo ninkana saasuu nasab ku noqday kana nasabnimo ku noqday aanan la haynin oo diin islaam aan ku fadhinin dhaqanna aanan ku fadhinin ilbaxniman aan ku fadhinin wax hadda maanta ee aanan dad iska abuurtay oo ayaga iscajabiyay iyo dad ayaga loo arkay inay ayaga ay dadka kale ay ka af gaaban yihiin ama loo awood maartay ee sheegan karo inay yihiin un bay xaqiraadu ka dhalatay dad shalay waxa laga yaabaa inay ahaayeen boqorro oo adduunyada laga dambeeyo oo aad loo xushmeeyo markaan xaqiiqada idinkaga hadlo maanta reerkan uu ka dhashay maartay Axmed Muqtaar Saalax wagaratay hintiraha ah dadka deegaanka iyaga ay wada degan yihiin haday tintiisa adag aanan la dhahaynin dadka deegaankan gobolkan Shabeellaha Hoose marka la soo qaato yani halku dhageeyada iyaga ay lahaan jireen iyo taariikhdooda intira baarcad hooy maqaata ayaa la dhihi jiray hilibdado waas u hiraan hiraa magartay you know yani markaad eegtid SYL ki waxay ku leeyihiin maartay ninka khaliif huudow macallin la yiraahdo Cabdilla Saalax gudoomiye ku-xigeenka labaad ee koonfur galbeed ayaa adeer u ah يعني هنترو كرشي أو بالحد مقرتي وأن ذاتك هذا اللي دلي ينكان وحي هند قرابة SYL كي عبد القادر الشيخ سخاودين وأتقانا إن الشيخ أو الشيخ ديرة بلد الأمين ديجان كأي دجين ويفهم سوما مركب وحواي هذيني والبحفان اللي يرادو أنا قد طلحة يا أنت وحين السوفر يسلها وريا أبوي متقانين دلحو مودي واي درك يدوني كان كيس دوايا دلحو مودي وسود دواد إن كل يروي عندي لهم you know waayo afartan iyo sagaalkii gobolada Soomaaliyeed ninka kaliya ee bixiyay hanti ee asaga abaartii looga baxay ee la wada yaqaan caan way
laakiin taariikhdu ninna way soo saartay ninna way aastay Soomaalidu dhaqankana wuxuu salka ku hayaa dad dhaqankii ayaga lagu dhisay oo Soomaalida qaar sidii la rabto oo ayaga loogu maartay micneeyay qaatay aaminay waxyaabaha ee lala yaabo culimaha hadda maanta meesha fadhido intii fiicneed iyada ay qaadatay haddayse laakiin aan soo qaato oo sheekh bilaad meesha uu soo qaadanayo kale inantii af ingiriiska soo qaadatay wax hadda maanta la dhihi karo waxaasi iyo waxaasi ayay Soomaalidu ee iyada ku kala sarreysaa la dhahayo ma jirto gabagabadii madasha waxaa goobta ka hadlay isla markaana soo xiray dood cilmiyeedka agaasimaha Machadka Samadoon Dr. Awiis Sheekh Axmed isagoona u mahad celiyay ka soo qaybgalayaasha dooda ayaa ballan qaaday in doodahan waxtarka u leh bulshada Soomaaliyeed ay sii wadi doonaan xildhibaanka iyo banka intiisa kaleeto xubnaha kala duwan ee shaqada leh intii waqtigooda soo xiray ee barnaamijka ay yimid كتبتياشة يفاسيليتيترز كلا دوان يهوشا يفلودي لما أنتوا لو اسكتوا مع جال مقارنة كسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كيدي أنت وقتي بدني قبل حال كاني وحيلتها توبي النورية لو أرين أنت وبعد إن علماء تبع تقول اللي بنو حلنا المكرر دي إن ما أنت أي دعوة دي ما نوصل عليه كل بلا وكنت برشدين كده العام قرني عن كتبنا يساعد كان جونا كنت وارين مرجلة تاسع وحيد كلفتين Machadka Samadoon oo ka fikiro bari dood noocaas la isku yimaado dadka Soomaaliyeed aqoon-yahankooda la soo dhex dhigo waxna la iska weydiiyo arinta noocaana sidee aan ku xalli karnaa malihin xay u dhacday way dhacdaa maanta laakiin waxa muhiim ah inaan ka fikirno iyadoo kala bari inay soo noqonayo si marka taa u dhicin waxay u baahan tahay barta in aragti la iska weydiiyo waxaani maxay yihiin maxaa keeni kara sidee lagu xallin karaa dad islaam ma baan nahay diintan islaamku waxay ka qabtaa dawlad baan nahay shuruucda noo taalo maxay ka qabtaa Soomaali baan nahay dhaqan baan leenahay dhaqanka iyagu arintaas muxuu ka qabaa shuruucda kale ee dawladda Soomaaliya ay xubnaha ka tahay oo ay saxiixday ay ugu horeeyaan shuruucda xagga human rights kala xiriirta maxay ka qabtaa waxaan rajaynayaa banalka oo runtii dad experts ah inay aragtidii ku habooneed iyo aqoontii iyo kalimadii ku habooneed ay soo bandhigeen ma aha wax inta ku koobnaan doono waxay u baahan tahay fikradii halkaan maanta aan isku wadaagsanay inaan bulshada kula noqono qof kasta qoyskiisa iyo asxaabtiisa uu ku celiyo wax practically ah oo runtii dhaqanka maanta aan ku dhaqmayno wax ka bedelan ay noqdaan waxaan isleeyahay ciidana maanta kuma qanacsana in falkaasi oo kale oo ku dhacayda ama qof alkeed ma ku saxibkeeda uu ku dhaco laakiin waxaan moodaa in aysan jirin cid wada istaagtay oo arintaas ka hor tagtay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo runtii hawshan adag dadkii soo abaabulay ee waqtiga badan geliyay oo runtii mar walba looga hadlayo toobiyada aanu isleenahay waxbay ku soo kordhi karaan bulshada Soomaaliyeed waa xilligaas waa taagan yihiin Machadka Samadoon wuxuu diyaar u yahay kula howlanayaa inuu soo qaban qaabiyo aragtida aqoon-yahanka uu soo keeno dadka Soomaaliyeedna ay noqoto meel ay isku yimaadaan madal ay ku wada hadlaan dhibaatadan haysatana aan ku falankayno waxaan isleeyahay ciidan cirka nooga imaamayso malaa'igna noo imaamayso annaga Soomaaliya wadanka annaga iskale annaga nooga baahan inaan xalka keenno xalkana wuxuu ku imaan karaa inaan wada hadalno waxaan naga khaldan aan isku sheegno saan ku hagaajin lahayna aan isu dirmaano mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaan daawadayaal barnaamijkii gaarka ahaa ee idinkaga imaanayay Jubbaland TV xaruntiisa Muqdisho ayaa halkaasi ku soo gabagabeynaya anigoo Cabdullaahi Maxamed Samawade ayaa barnaamijka idila socodsiinayay isla markaana idin soo saaray tan iyo kulanti dambe waa bahda Jubbaland TV Muqdisho oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo